بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحرونت الله تلنت ضدك إيه هرمرين شقادة ديتوري سفين ولا شيء إلا الله يسوى ديتوري سفين ولا لي لو حرب ما أنت إن اللي وذاقه إذا إن تصه بل لين كان روح على يوشي جاي إنه سومالي هاي بل ولا لي على سيد لين كان لو جراع هيو أما لو دل هيو بالفيرية haddaba halkan waxaan ku aragnaa nin baawur watay oo qolo kale oo baawro meel baawur dhexdiisa ah baawur badan dhexdeeda ah ma ninku wuxuu halleeyay ma garanayo waa nin weyn waa nin maartay ka muuqato haybad ka muuqato waxa iskugu tagaya intaan oo nin ah oo murquhu geedkaas la eegayno cadaan ah iskugu tagaya ma magaca afrikaanimada lagu dilaya oo lagu raacaya waa la yaabay waa iga yaabisay waxa bir lagu dilaynayo oo biraha lagu dilayo balfiiri hadduu cararo labada lugood baa la iskugu dhifanayaa markuu hadii ilaahay ku reeyay meel dabcan oo ku badanta la iskugu yimaada jiqda laga garaacayaa meel uu baxsado garan waayay meel walba afkii iyo sankii dhiig buu ka sii deynayaa eber waa la baabishay waa la dilay markii dambe markii laga bogtay si la rabo loo dilaalay raac baawurka raac yaa dhahay wala bax ma qaan wixii ka maqan asay ka maqantay uu qaawan yahay waa qaar qaawan yahay rafaadkan ba haysta walaayana waxa ay leeyahay marka Soomaaliya wadamada shisheeye aad u cararaysaan oo u ordaysaan waxaana ka horeeya qalad hadaa gashaan waxaana ka horeeya kulliba qalad ma galin ninkaanu yahay kulliba ilaahay baa u kasay in saatan loo dilo laakiin waxa suurtagal ah inuu dalkiisa hata uu qalad ka galay waxa suurtagal ah inuu dalkiisa uu u haystay dalan jirin aan Soomaali qof kasta oo maanta Soomaaliya wallahi saatan inaan loo galeyn qofkii ku dilaa xabadu kugu dhufana waana dhibad laakiin insaan qof loo dilo loo bahdilo loo garaaco wixii raba laga sameeyo Soomaali kama dhacayso qofku xogaa waa la jiq wareeriyaa dada ka dhicinaya qof ka dhicinaya ninkan ma jirto war Soomaaliyeey dhibaatadan idin haysato oo adduunka dhan ku haysato oo meel kasta ku haysato waxaad yeelaysan dalkiina u soo noqda dalkiina hadii la ku reeyay ilaahay u toobad keena dalkiina u soo noqda oo dalkiina hadii la ku wax u qabsada oo amnigiisa ilaashada oo meel aad maanta wax aragtaan ka heli kartaan oo ka ilaashan kartaan waay qof Soomaaliya maanta sidaan qof meel Soomaali dhexdeeda lagu badilin ma lagu dilin sidaan abadan ma lagu dilin hadii la xabada lagu dilaa bas uu tagaya ama asoo dagaal ku jiro dhibanaya laakiin qofkan ka masaakiinka oo boqol nin feerka iska dayso oo la garaacay oo cad laga dhigay oo hadba meel ugu jilaafaynayo oo la bahdilayo qofkan nolol dambe haduu xataa noolaado xataa noloshii dambe maskaxdiisa xataa ma joogto qofku inuu dhinta uga faan sidaan marka aad baan idin salaamayaa sidaan waa inaan wax ka bedelnaa sidaan waa in Soomaali dhibaatadan la isku geenayaa wadamada shay loogu geenayaa waa inay wax ka bedelaan waa in dalkooda u soo noqdaan waa in dalkooda dhistaan waa in dalkooda hadii ay ku reeyo u soo noqdaan waa idin salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh